Su'aasha 29aad waxaa inoo qoran marka la fududeeyo jibaarada xaa ku jibaaran 2 lagu dhuftay xaa ku jibaaran 4 oo lagu sii dhuftay xaa ku jibaaran 8 waxay la mid tahay marka ba waxaa qoran xaa ku jibaaran 10 soo baxayso taana waxaa qoran xaa ku jibaaran 14 soo baxayso maya waxa soo baxayso ja oo ah xaa ku jibaaran 12 haddana maya le waxa soo baxayso xaa oo ku jibaaran 8 marka halaha marka midda saxda ah aragna inaad doorno marka ugu horeyn marka aad ka shaqeyna marka waa kina su'aasha marka u fiirsano oo waxaa qoran xaa ku jibaaran 2 lagu dhuftay xaa ku jibaaran 4 lagu dhuftay xaa ku jibaaran 8 marka u fiirsan marka waa ku dhufshada jibaarada ku dhufshada jibaarada maxay marka hadii marba salka isku mid yihiin salka hala laga qaataa oo xaada jibaaradana maxaa waa la isku daraa marka 2 lagu daro 4 maxay maanay waa 6 waay 6 ku dar 8 maxay maanay 14 waay oo jawaabta marka waxay noqonaysaa biskiliin xaa ku jibaaran 14 oo jawaabta marka inta ka fiiriyo marka waa tanaamidan waa oo taada ah oo xaa ku jibaaran 14 marka hadii inta ka doorno wakina su'aasha la sagaalaad waay oo wakina jawaabta xaa ku jibaaran maxaa 14 waay su'aasha numberka 30aad waxaa inoo qoran marka la fududeeyo ma laga jaray 5 oo dhammaan laba jibaaran waxay la mid tahay aliska raba markan ba waxaa qoran ma oo laba jibaaran lagu daray 10 ma laga jar 25 taana waxaa inoo qoran ma oo laba jibaaran minus 10 ma balas 25 qoran jaana waxaa inoo qoran ma oo laba jibaaran balas 10 ma balas 25 waay xaana waxaa inoo qoran waa ma oo laba jibaaran minus 10 ma minus 25 waay halaha marka kee saxay midda saxda inoo xarabna aan soo ogaano hadaba marka waa kina aan ka shaqeyna marka waatna su'aasha waa ma laga jaray 5 oo dhammaan laba jibaaran waay waxay la mid tahay doonaa horta macnaheedu waxay tahay horta waa ma minus 5 oo lagu dhufan doono waay ma kale iyo minus 5 waa markaas waxay la mid tahay marka ugu horeyn marka maadan ku dhufan doonaa maada maxay maanay ma ku dhufan ma maxaa noo imaan doono waa ma oo laba jibaaran mar labaad isla maadidna ina ku dhufan maxaa 5taas iyadana maxaa noo imaan doono waa minus 5 ma waay hadana waxa bilaabi doonaa 5ta hadana minus 5 waxay ku dhacaysaa maadan iyadana maxaa noo imaanay waxay la mid tahay waa minus 5 ma waay ugu dambeyn marka minus 5 waxay ku dhacaysaa minus 5 kale idana maxay maana waa plus waay minus ku dhaca minus waa plus 5 ku dhufa 5 maxaa 25 waa marka waxa dhidana marka ma oo loo jibaar waa kaligeeda waa ma xaraf wax wato oo jibaar laba wato waa kaligeeda waa ma oo loo jibaaran labada way isla yihiin marka calaamadana isku mid waay waa isku daraa marka waa minus 5 ku dar minus 5 maxay maana waa minus 10 ma waay plus 25 idana kaligeeda waa xaraf ma wato inoo qeyn marka oo inoo soo qor waa kina oo maxaa marka waa ma oo loo jibaaran minus 10 ma plus 25 waa jawaabta saxda ah marka halkaana ka fiirino waqtina oo midaan waa ma laba jibaaran minus 10 ma plus 25 waa marka jawaabta waxa waa taa waay hadii imtixaanka ka fiirino waqinaasani oo jawaabta waxa dooran doonaa ta waa ma oo laba jibaaran minus 10 ma plus 25 waa marka su'aasha 31aad waxaa haysanaa hadii la isu geeyo 3 xa oo laba jibaaran lagu daray xa lagu daray 8 oo lagu sii daray 7 laga jaray minus 8 xa oo lagu daray 2 xa waxay la mid tahay marka waxa soo baxayo oo midaan ba soo baxayso mise midda ta soo baxayso mise ja mise xa ugu horeyn waxay rabtaa in laga shaqeeyo marka daba marka ka shaqeyna marka oo waatana su'aasha intay noo qoran tahay daba marka sameeyno ugu horeyn waxa ka saari doonaa horta bilaha wax dheena waxay la mid tahay doonaa waatana su'aasha ay bilaha ka saartan koowaad bisha ka saar waxa qoran waa 3 xa oo laba jibaaran lagu daray xa oo lagu sii daray 8 waay qaybtan kale idan waxa qoran waa plus 7 xa minus 8 xa oo laba jibaaran oo lagu daray maxaa waay 2 xa waxay la mid tahay doonaa marka iyo isku mid marka 3 xa oo laba jibaaran yaa la mid oo xarafka xa wato jibaar loo wato waa kina waa minus 8 xa waay xarafka xa beeta jibaar laba beeta kadib waxa ku sii xigo plus xa waay ya xarafka xa wato kaligiis ah oo jibaar hal wato kaasna waa kina waa plus 2 xa waay oo jibaar hal wata kadib waxay noo qoran waa plus 8 oo gooni ah iyo plus 7 oo gooni ah waxay la mid tahay doonaa marka kuwan tirooyin caadi ah ayaga wax xaraf ma wataan 3 xa iyo minus 8 waa marka 3 xa oo loo jibaaray minus 8 xa oo loo jibaaran maadaama kala duwan calaamadahoodu waa kala jar doonaa kan wuxuu wataa plus waa kan wuxuu wataa minus maadaama kala duwan calaamadaha waa kala jaraa marka minus 8 ka jar 3 oo plus maxay maanay waa minus 5 ay maanayso oo xa oo laba jibaaran kana weyn jawaabta minus raacay marka kan wuxuu wataa hal xa kan wuxuu wataa 2 xa maxay maanay ayagana waa plus 3 xa waay
ugu dambeyn marka waxay noo qoran waa balaas 8 iyo waxa qoran balaas 7 maadaama isku mid yihiin calaamado ayaga waa isku dari doonaa oo maxaa jawaabta maxaa waa balaas 15 waa marka oo jawaabtaas oo waxaa marka waa -5 xa oo laba jibaaran balaas 3 xa balaas 15 waay haddii inta ka fiirino waa kana midda koowaad waay oo ba waay oo -5 xa laba jibaaran balaas 3 xa balaas 15 waa marka haddii imtixaanka ka fiirino waatina oo qaybta koowaad oo ba'da waa marka iyada goobo gelin doonaa markaan su'aasha sodii labaad waay waxa inoo qaran wuxuu leeyahay marka la kala gooyo 4 xa lagu daray ya laga jaro 8 ayaa waxa laga gooraa 2 xa laga jaro 4 ya oo lagu daray 6 waay waxa la taw leeyahay marka ba ita ija iyo xa isnaalaha marka mid soo baxay jawaab sax ah ina ogaana rabno hadaba marka in laga shaqeeyo rabta hadaba marka ka shaqeeyna marka waatina su'aasha shaqada bilaawan marka u horeyso waxa dhig doonaa maxaa in bilaha ka saarna waay 4 xa inoo soo qaad 4 xa oo lagu daray ya waay oo -8 qaybta hore bish waa ka saarnay laakiin qaybta dambe -7 -ka marka gudahana ku dhici doona minus dhufo maxay maana plus 2 xa waay maxaa noo imaan doona waa -2 xa waay -ka waxa ku dhacaa -4 ya idina maxay maana waa plus maxaa 4 ya waay ugu dambeyn -ka waxa ku dhacaa plus 6 idina maxay maana -6 waay taas macnaheedu xitaa marka ina ogaataa la rabaa oo muhiim ay tahay haddii ku dhaco waxay maana plus waay hadduu ku dhacona plusna waxaa imaanay ay imaan doona marka hadda marka asi wadna marka iyo isku mid ah dhigi doona 4 xa iyo la mid ah xarafka xa wata marka jibaarkiis hal yahay waakina waa -2 xa waa xarafka xa ee jibaar halna oo qarsan yahay kadib waxay noo xigay maxaa balaas ya waay idan yaa la mid ah xarafka ya wata jibaar hal oo qarsan yahay waakina waa plus maxaa 4 ya waay ay kadib waxa soo -8 oo kaligeed ah tiro kaligeed ah iyo -6 oo tiro kaligeed ah ay kadib waxa dhigi doona marka 4 laga jaro 2 xa maxay imaanay waa 2 xa waay kan wuxuu wataa hal ya kan 4 ya waay idan maxaa noo imaan doona waa balaas 5 ya waay ugu dambeyn waa -8 iyo -6 iyagu ayagana isku calaamad waay maadaama isku calaamadii maxaa isku dar marka waa -8 ku dar maxaa waa 6 maxay imaanay waa -14 waa marka oo jawaabta aysan maxaa waa 2 xa lagu daray 5 ya oo laga jaro 14 waay waa jawaabta koowaad ba waa marka tan waa marka mid u horeyso waay haddii imtixaanka ka fiirina idina waatina oo maxaa tanbaada waay waa 2 xa balaas 5 ya -14 waay markan waa su'aasha sodii saddexaad waxa haysanaa ay noo qoran baduleedka dhullubo oodanaan leh gacankeedu yahay 10 cm joogeeduna yahay 50 cm waa leh marka baduleedka marka aan soo heli doono oo ka miyuu yahay 3768 cm loo jibaaramaya 3668 cm loo jibaaran waay 3867 cm oo loo jibaaran waay 3687 centimeter oo loo jibaaran waay hadaba marka si aan u ogaano jawaabta saxda ah ka shaqeeyna marka waxa dhigi doona marka ugu horeyn horta baduleedka gacanka ah haysano baduleedka dhul waa la iska rabaa oo baduleedka raadin doona gacanka ah haysano xarafka ga u qaadan doona qiimihiisa waa 10 centimeter waay waxa kale noo qoran maxaa jooga oo ja asan waxa noo qoran waa 50 oo centimeter waay waxa raadinayna maxaa baduleedka waay oo calaamad su'aal saari doona hadda waxa dhigi doona marka baduleedka dhullo marka qaacid ahaan waxa lagu helaa waa 2 by ga oo lagu dhufanayo waa ga oo lagu daray ja waay oo jooga ah ay baduleedka dhullo dhigi doona wuxuu la mid yahay ay 2 oo lagu dhufanayo qiimaha by qiimo go'an waa meeqa waa 3.4 waa lagu dhufanayo ga oo gacankaasan waxa 10 waay bila furi doona gacanka oo 10 ah aan ku dari doona jooga asana meeqa waa 50 waay ay baduleedka dhul waa dhigana wuxuu la mid yahay doosan TV gali marka waxa dhacda 2 oo lagu dhuftay 3.4 oo lagu dhuftay 10 meeqa waay waa 62.8 waay oo lagu dhufanay 10 ku dar 50 meeqa waay idin 60 waay ay baduleedka dhul marka wuxuu la mid yahay doona hadii 62.8 aan ku dhufan 60 maxaa noo imaan doona oo jawaabta soo baxaysa maxaa waa 3768 oo centimeter laba jibaaro markaas baduleed waxa lagu cabiraa centimeter laba jibaaro jawaabta waxa marka waa 3768 inta marka ka fiirino waa midday marka waa midda koowaad oo baada waa marka waa 3768 centimeter oo maxaa waay oo laba jibaaran waay hadii imtixaanka ka fiirino waatina oo su'aasha ba ayaa dooran doona marka
markan waa su-aasha sodii afaraad oo waxaa inoo qoran barbartameedka xariijinta martuu leeyahay baraha kale ah 12,3 qoran iyo -8,3 barbartameedka marka ba miyuu noqonaa oo 3,2 ah mise ta uu noqonaa oo 2,3 ah mise ja uu noqonaa 12,3 mise xa uu noqonaa oo -8,3 ah midda saxda inaan soo helnaa rabnaa hadaba markan ina keena waa kina waatana su-aasha in waxaa rabnaa soo helna barbartameed marka barbartameed markii la raadinayo oo barbartameed kala soo helaa qaacid ahaan waxaa lagu helaa oo waxaa dhihi doonaa waxaada koowaad oo lagu dari doono waxaada labaad oo dhammaantooda loo qaybin doono 2 xakad yaada koowaad oo lagu darayo waa yaada labaad dhammaan oo loo qaybin doono 2 ugu horeyn waxaa dhihi doonaa marka horta waxaa haysnaa labadan barood kan wuxuu noqon doonaa xaada koowaad kan yaada koowaad kan xaada labaad kan yaada labaad marka bilowna marka xaada koowaad booskeeda yaa ku jiro waa 12 waay ay plus waa marka plus inoo soo qaad xaada labaad idina booskeeda yaa ku jiro waa -8 waay oo dhammaantood waxaa u qaybin doonaa 2 xakad yaada koowaad booskeeda waxaa noogu jira 3 oo waxaa ku dari doonaa yaada labaad idina 3 waay oo loo qaybinayo 2 waa marka hadaba markaa sameyna marka barbartameedka oo ma u taagan wuxuu la mid yahay meeshan waxaa inoo qoran marka waa plus iyo minus waay plus hadii u dhufto minus maxay maanay waa minus oo marka 12 laga jaro 8 meeqa marka 4 waay afartaas waxaa qaybin doonaa labadan oo hooseeya ah maxay maana 4 u qaybi 2 maxaa soo bixi doona waa 2 mar labaad intan waxaa inoo qoran 3 qadar 3 meeqa waa 6 u qaybi 2 meeqa idan waxaa noo imaan doona maxaa 3 waay oo jawaabtaas soo helna marka barbartameedkeena wuxuu noqon doonaa waa 2,3 waa marka jawaabta marka waa kana midaan waay oo 2,3 waay hadii imtixaanka ka fiirina waatana oo maxaa waay waa 2,3 su-aasha maxaa waay sodii afaraad jawaabteeda ta waa markan waa su-aasha sodii shanaad oo waxaa inoo qorahaysanaa qiimaha xagal kasta uu leeyahay ee 6 geesoole qaabsan waa 60 digrii 108 digrii 120 digrii iyo 90 digrii qoran qiimaha waxaa la iska rabaa marka xagal kasta la iska rabaa oo 6 geesoole ah inaan soo helno halaha marka mid ka mid waa marka in si aan ogaano marka midku yahay aan ka shaqeyno marka oo waatana su-aasha intayna ugu qoran tahay su-aasha hadaba marka aan sameyno marka su-aasha aan ka shaqeyno qaacid ahaan marka qaacidada waxay tahay waxaa dhihi doonaa waatana qaacidada waa n oo laga jaray 2 waay oo lagu dhufanayo 180 digrii oo dhammaantooda loo qaybin doono n waay qiimaha na marka oo n u taagan maanta wuxuu noqon doonaa 6 geesoole maanta qiimaha na maxaa maanta 6 geesoolaha aysan waay waxaa dhihi doonaa marka waxay la mid tahay inoo dheh waa 6 oo wax ka jari doonaa booska na 6 ku bedelnay oo laga jaro 2 lagu dhufto maxaa 180 digrii dhammaantood waxaa u qaybin doonaa isla naadi oo ah 6 waa marka haddii 6 aan ka jarno 2 maxay imaanaya 4 oo lagu dhufanayo waxaa 180 digrii kadib waxaa u qaybin doonaa 6 waa marka 4 ku dhufo 180 marka waxaa noo imaan doono waa 720 waay oo digrii waxaa u qaybin doonaa marka 6 hoostaala marka haddii aan qaybino maxaa marka 6 haddii aan soo qaybino waxaa noo imaanaya maxaa waa 120 digrii waay oo jawaabta soo bixaysa waxaa marka oo qiimaha uu yeelan doono xagal kasta waxaa 120 digrii waay waakina jawaabta ja waa marka waakina haddii imtixaanka ka fiirina su-aasha ugu dambeysa qaybta koowaad oo gobogeliska oo ugu dambeynaya marwana marka alxamdulilah waa 120 digrii waay